السلام عليكم ورحمة walaalkay caafimaadku waa waxa ugu qiimaha badan ee dadka caafimaadka qaba madaxooga saaran waa taajka madaxooda saaran waxaana u jeedo fiirsanayo arka dadka xanuunsan ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu noo sheegayaa in kalaamullaahi uu dawo yahay in quraanku uu dawo yahay marka quraanka laga yimaadana waxaan maanta ku tilmaamayaa suurad khaas ah suurada iyada hadad laazinto haduu xanuun ku hayo hadad u baahanto in iimaankaagu ziyaado hadad u baahanto in shubha iyo shubahaad uu qalbigaada ka baxo nifaaq uu qalbigaada ka baxo hadii cudurro cudwi ah oo muuqda ay ku hayaan hadii cudurro nifaaqa ay ku hayaan ducful iimaan haduu ku hayo dhammaan cuduradaas oo dhanba hiya shaafiya ida ka shaafinaysa hiya alkaafiya suuradaas ka kaafinaysa ibn qayyim waxa uu leeyahay muddo ayaa anigu xanuunsanaya waxaan joogay Makka xanuunka markuu iga tagi waayay baa waxaan soo qabsaday maa zamzam markaasaan ku akhriyay suuradaas markaasaan cabay markaasaan ka booday buu leeyahay markaas qof walba xanuunsan baa u tilmaami jiray suurada iyada xadiiskii ku soo aroorey saxiixaynka abi sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala an ardah wa asaga ma arkay ku akhriyay ninkii sayyidul qawm wa asagi markii la qarinay ku akhriyay oo masku qarinay ku akhriyay markaaba uu ka booday uu jurta ka qaatay suurada iyada miya taqaana every day bad akhrisan laakiin adigoo qafladaysan adigoo mashquulsan adigoo maqan bad akhrisaa waxaan rabaa inaan ku tilmaamo oo suurada aad celceliso oo ku celceliso oo u isticmaasho dhammaan xanuunadaada idil hiya alkaafiya way ka kaafinaysaa madaxan wadoo ku iyada ka kaafinaysa caloolhan wadoo ku iyada ka kaafinaysa xoolo hadii ma taqaan u baanta iyada ka kaafinaysa iyada ayaa wax kasta ka kaafinaysa hiya alkaafiya suurada iyada ah ila markuu ka sheekeynay fi suurat al-hijr walaqad aataynaka sab'an min al-mathani walaqad aataynaka sab'an min al-mathani wal-qur'an al-'azim ayda markay fasirayna Abu Bakr Umar Ata Qatada عبد الله بن مسعود انت waxa ay leeyihiin sab'a al-mathani tadabad soo noqnoqto ilaahay subhanahu wa ta'ala uu sheegayo iyo quraanka weyn waa suuratu al-fatiha suurada aan ku soo daro maxay waa suuratu al-fatiha alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين سورة داس كم إمسجر بعد ما أنت أخرسها ولقى أنت كوبكو أخرسي وحاجر ولا فربضن أو نمن رقادة أو صبحي أنت ملب يسوق قوشان مالك أي لعكتي حولها كذا الدشان وبهند دكتور آدم ومبهند وداد تلفون كاسو عقودهم كو أخرني وبهند أذيقو إسكو أخري suurada isku akhri awlaadaada ku akhri naftaada ku akhri reerkaada ku akhri waa suurada ugu waaweyn quraanka kamid ah waa suurada lagu bilaabo waa wasfa waa tilmaam waa prescription daily uu qofku akhriyo 17 jeer qofka mu'minka ah ilaahay ku subhanahu wa ta'ala 17 jeer laakiin markaad akhrinayso adoo salaada ku jira ma u niisata inaad caafimaado qof waxaad arkaysaa markii salaada laga baxayo imaam ii ducee sheekh ii ducee suuradu akhri uu ducada sheekhu waxa uu ka weydiinay uu leeyahay caafimaad iyo hebel ba operation galay hebel baa xasan iduu uu leeyahay isla suuradu akhriyay baa ku dheer inuu caafimaad ku jiro war akhriso war xaaskaaga bar war reerkaaga bar waa taqaanay laakiin u isticmaal inaad isku daweyso oo antibiyootika iyo cirbadaha iyo kaniinada dabacris iska daa oo suuradan i'timaad ilaahay subhanahu wa ta'ala ku caafinaya hayaka allah bayak salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh